Soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaa wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaad doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan wax uu kaliya uu rabo wax kale maaha haddii uu hal maalin ama hal habeen muuqaaladiisa ama waxyaabuu sameyn jiray kaa qosol siiyey maanta garab u baahan yahay الله وبركاته وانا سلام داود الكسر هذا موقع كل عصبي ووجه كل عصب فضل ديتا مركور جنك سبق قرص وين سبسكرايب صرتا عادلكم دجنك عادي هذا ما سنتا ما انت هي سي تترك سؤالك توايا عمل كلمه ودي ان رؤانتي شكبابا او تقانين اما محمامين يحيى سي ددك او تقانين ان ارنتي شرم runta ka hadlay ayaan loo galay qof bil aadan markuu runta ka hadlayn in runta ah laga sheego sababtoo tahay qofkii uu dilay cadeyntii u baabeena in Allah yaani u dhib yarayaan leenahay maxamed yaxyi in wax uu kaliya uu rabo wax kale maaha haddii uu hal maalin ama hal habeen muuqaaladiisa ama waxyaabuu sameyn jiray kaa qosol siiyey maanta garab u baahan yahay haddii aad aragto maanta soo dhibaatay Soomaaliyaal maxamed yaxyi shakubaba ma ka tagaysid runtii وأقانا على والأرديس هذه وتقانا وحوس كبرت السوشيال ميديا ما أنت وحوس بهين كرب ما نرى بهذا إن نقول إيه صوت هاي دوكيومنتري دمسترن يعني ذي هاي موقع كان ترتيب صودا وذا عندنا بعد قال أن كفالة دونا أصحاب تقاليقة وحيد الله ونزار وداو عنه محمامي يحيى أصحابي وحاي يقول عضي أرك اللي يدلي وحواي ما دام أن عدالتي حق أكالي أو أنا كهالي رط جرت شرب بوي يدغ درج لوجيستي وحاد عضي مات بركة سعد بريسي هلك ساعة وينما وحي صوّع دليرو ده ككم لاين سديد قف وحي رادين والله شقبابا كوقار أنا غون ولا ياي وحي رادين بيالله هالليلة شقبابا بركة سكويري هاوا ديار بستي قانا بقولها waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa ina kulaadlo ana oo kulkulba ana kulaadlo kala hadla arinka sharb boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii ina u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxaa siri hadii aad gabtid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorida wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mar ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho Jam Street Alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid kamid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay والسكيو كيتك مركان arkay gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii secretary ah waxay siri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo cadaan model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balan waa ina meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilf ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyey
انت احبرشي اللي يجي كورت بابور كنت يودين هجبات بدر يودين waxay yiraahdeen waxa next oo ku wax jireena dhig li yiraahdo cunaan model madama uu yahay majarteen marka waxa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari liigeeyo askari walba liigeeyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad wali dhirbaaxay wali feeray kadib waxa dhacday in la wareejiyo kadib in la iigeeyo dhigi ahaa Abrashid markii la iigeeyay wuxuu yiri wuu ka naxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raali kabihi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raali kabihi wax lagu sameeyay waxa weydii hadii aad raali ka ahayn waxa ku kala fiicinaad madqalaayo aad iisoo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ilaaha hadishid wuxuu yiri waa ka xumaay waxa u maleynay inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo haajiri super power waa dhalinyaro oo udqaana intii la laayay ka soo hirtay waxaana la laayay ay darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo udqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaaday ka taliyaan ani ahay daba dhilif jarteen maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharma boy iyo waxyaabaha ku xelisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yiraahdeen calaamada iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan hadii nabad ku noolaada magaalkan anaga rag marihin waxa dhacday in Axmedshiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufoosh lagu dhibay markii la dhaawacay la jugeeyay wajigayga dhaawaca la saaray waxa iiba tareysaraan loqo waxba iiba tareyso wax la iigu sameeyay rag dhaay iyo dumarka dhaay Sharma Boy wuxuu waxaan u sameeyay views darteeda wuxuu waxaan u sameeyay in uu matqaanayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxa la ii dhaawacay waa su'aal aniga ma baqay waxa ballan qaadaya waxa ilaahay hortiisa ku dhaaranaya hadii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo hadii aan sameynina hooyada xakiiba aadan faarax oo siday igu soo garisaan aqoon u leeyahay ayay ka siristaa hadii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadiridwood dhibaatadaani waxay ii soo martay oo la ii soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqay mana ka gabanay xabada hadii oo matqaada igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan u leeyahay ayagoo hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad waa u baahanahay Soomaaliya hadii aan xishmad iyo matqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin ka qosliyay aan hal maalin ka farxiyay tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagan taasi waxa waaye waa bariyo aad ka bariyay waxaa bal qaadaya inta waxay igu soo gaarsiiyay dhaawac inta gaarsiiyay hadii aan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaan la matqaanaa ilaahay hortiisa ku dhaaranaya hadii aan ka aarsan waa ilaahay inuu cadaab jahannama salkeeda imari ilaahu cadaab jahannama salkeeda imari hadii aan aarsan waayo aad u baasantahay waayahay tartiibna waa u soo bogatay qisadan documentary-gan dhammaystiran waxaa ku jiro dhalinyaro aan xataa weli aan ka hadlin cadna model aan ka hadlin arinta xataa oo la dhahayo cadna model loo ku xigaa war qabiil meel ma ku geynayo godna ma kula galaayo run ahaantii waxa fiican walaaltinimada iyo saaxiibtinimada meesha ay taagantahay in la arko qabiil waa la isku gartaa oo kaliya horaan loo sheegay tacaarufo
أنا أكرمكم عند الله سيد الاسكو كرت أوكليه قبيلك والاسكو أفكرتها لكن ما صاحبتنا ما ماشي تاين ما فيري كان هدي عن كل هذا وحن كلها فضلا كران اللغة دي كيش اللايك صار ما أنت واحد كلام ربي إنه عاونات إن يعني بنا بحدين يعني دي سودسين هذا ما سنتين سكست تبغى بس تدي وش مو قاعد إن شاء الله لما أنت إحنا رجعنا في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم نعم رجع سبحان الله مو قال كان مو قال إن شاء الله باي باي